maanta waxaan wada xalqadeena labadeena migina Ariston xalqadeena ugu socono soo qaado koobka shaaha ama kafeega xalqadeena ku bilaabanaysaa Senkuya Tachu waxa dhaw markay isjaabiyaan Netr Aiserki ay sameeyeen waxaana ku guuleysanayaan midaas waxaana doonayaan in qof walba la soo celiyo sidoo waanay doortaan qofka ugu horeeya jasugu qalbigiisa raacaya wuxuu doortaa gabadhu jaalaa ee suriha in dib loo soo nooleeyo wuxuu tijaabiyaa dibadda si uu hubiyo inaysan waxyeello u geysan doonin ogaanaya in haddii jirku uu burbursan yahay qofka la wadaadin karo ee inuu qofkaas u dhintay kadib Tachu waa ku adkaysanayaa inuu siriha dib loo soo celiyo laakiin markay arkaan in dalkeedu maqan yahay Tachu wuxuu go'aansadaa inuu geeyo xeradooda si dhar ugu geliyaan markay dhagaxa ka jabiyaan iyo isku raacay midaas ayuu Tachu qaadaa siriha iyadoo dhagaxa sidii u geeyo xeradooda ayaa libaahay gooriisa baa soo weerara dadka ma kuwa hadda ugu awoodda badan dunidan cusub xayawaanka ayaa hadda ka sareeya kana awood badan Tachu wuxuu isku dayaa inuu naftiisa u horo si uu Senku u baxsado laakiin Senku wuxuu leeyahay aniga waxaan ahay maskaxda adiguna waxaad tahay muruqa marka waynu wada noolaanaa markaasi si degdeg ah u raadinaya jirka nin dhagaxa oo lagu magacaabo Tsukasa ugu xoogga badnaa ee ka mid ahaa ardayda dugsiga sare daawada ku shuwaca Tsukasa sidoo jeer buu ka soo baxaa dhagaxa halfeer ayuu libaaxa ku dilaa markii libaaxii arkeen ninkan awoodiisa way iska laabanayaan ninku midda mucjisada noqonaysa kadib waxaan arkaynaa inuu si degdeg ah uga dhigay kooxdii mid xoogan waxaana u soo dabaa hilib kalluun iyo doofaaro iyo shimbirihiiba amiiso khaas ah ay wax kasta ku ugaarsanayaan waxaana midda guul weyn bay u ahayd iyo qorshaha mustaqbalku leeyahay Senku wuxuu sheegayaa hore u baahan inay tahay calcium carbonate adeegsanna afar arrimood waxaanay kala yihiin beerashada dhismaha lagu dhisay sibir ambar shimiito saabuun inuu jiro mid afraad laakiin Senku wuxuu ka odhanayaa mid afraad aduu keen Tachu ayaa odhanaya smartphoneska kadib Senku ku qoslaa wuxuuna ka odhanayaa waxaanu joognaa 700 sano laakiin shaka ugu horeeya Senku wuxuu bilaabmaa markuu Tsukasa uu ku dhawaaqo fikirkiisa khalafsan waxa weeyaan kaliya dhalinyarada waa in la soo nooleeyo waayeel kuwa xukun iyo dulmi ku soo celinaya nolosha bilaabaa inuu jabiyo taalooyinka waayeelka Senku wuxuu ku leeyahay qof kasta waa in la soo nooleeyaa cilmiga waa lagu adeegaa aan aadanaha fikradooda waa kuwa adag laakiin mid walba aragtidiisa u difaacanaya Tsukasa wuxuu si gaar ah u xushaa jir gabadh arkay wuxuu leeyahay intaadi intaana dhintay baarko waan baabiinayaa dhammaantood isagoo la yaaban wuxuu ka baaqayaa haddii Tsukasa noqdo halis mustaqbalka Senku wuxuu odhanayaa haddii uu damo in dadka isagu go'aamiyo ciduu la noolaanaya waxay ku noqon kartaa dhibaato weyn inuu doonayo inuu dhiso dunida cilmi ku dhisan halka Tsukasa uu rabo oo xoog ku dhisan laakiin xukunkaas wuxuu noqon karaa mid lagu dumiyo dadka kale oo arko in Tsukasa uu leeyahay qof xaq u leh inuu xukumo ama uu leeyahay dhulkan waa inaan abuurnaa mustaqbal xol u ah dhalinyarta oo dhan taasna waxaa ka muuqata Tsukasa inay ka muuqato khatar qarsoon leeyahay anigu ma doonayo awood waxaan rabaa cilmi waxaan rabaa inaan dib u dhiso ilbaxnimadii dib u helo nolol wuxuu ballan qaadayaa inuu soo noolayn doono qof kastoo dhintay ka fikrahaan ku kala leexdeen Tsukasa iyo Senku ee qaybteen labaadna ku dhammaatay maanta uu muujiyey awood aan caadi ahayn may noqon doontaa saaxiibtinimo mise khatar cusub qaybaha dambe si aad u aragto halka sheekadu ku socoto qaybtan like commentigana fikirkaaga nagula wadaag channelka saaro hesho qaybaha xiga